waxaa jiraano dad fara badan oo isweydiinaya waa maxay saaxiibku, laakiin saaxiibtinimadu waa mid ka mid ah hadiyadaha ugu qaalisan ee nolosha. saaxiib waa kan kaa caawiya inaad faraxdo. waan ognahay dad badan ayaa nolosheena ah, laakiin ogow dhammaan maahan saaxiibadeena. saaxiib waa qof ka fahmo in badan adiga. saaxiib waa in si taxadir leh loo doortaa, maxaa yeelay saaxiibka wanaagsan wuxuu kugu hogaaminayaa waddada wanaagsan, halka saaxiibka xun nolosheena qariwa isagoo kugu hogaaminaya waddada khaldan. waqtiyadeennii xumaa ayaa naga dhigo inaan runteena ka dhigano saaxiibo xun iyo kuwo wanaagsan. saaxiibtinimada dhabta ah waa la xukumaa daacadnimada iyo taageeridda. saaxiibka wanaagsan waa qof kula garab istaagi doona marka uu waqtiga adkaado. marka saaxiib macnihiisu maahan keliya fahan iyo caawin, waxay u baahan tahay dulqaad, jacayl iyo wixii la mid ah. marka saaxiibka runta ah waa tiir. saaxiib waa hadiyadda qaali ah ee aan haysano. waa inaan baranaa sida loo jeclaado saaxiibadeena.